sharaf ay soo qabaqaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Oslo Norway. Sharafkaas ayaa wuxuu ugu talagaleen gudoomiyaha Shabeellada Hoose Mudane Cabdulqaadir Sidii oo maalmahan ku sugnay caasimadda Oslo Norway. kusoo dhawow فليتفضل مشكور. بعد التحية المعطرة آدي أدبان ذيك جمعة عليا كنتي سلوين تديرن هذا سمعتين قالك شبلاص أنا هدا مقعي مصيب على بحال معلوم باللي المسؤول كالنقا لكن وحنا وتعامدت كي دجنا يدت كي مسؤولين تي الدولة دي سيد عذير كي وش جواي هدا قف كي الدولة ده هدو سري وكسر عداني جوا فإذا مركا سلوين تان وحي موجنا سا إن لفتجي جم حاكم نديد النلار لسه وهدي شلي حاجة عن روتينين معنا إن أردنا هدان جيفنينا استاجنا هدان صعنينا أردنا هدي حاجة مع عجزنا إن عجز كنا جبحي تاسم هدي وربحنتي وقابن هدان يدسيو قبل كشباب الله أنت اللي جار هرتو حكم لها وفد جي بدحوينها جمهورية الفدرال الصومالية البروفيسور حسن شيخ محمود وبلارنا وفد بلارنا وسوي قامنا إن كبدها runtii madaxweynaha wuxuu yiri igu salaan jaalida Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Norway iyo Oslo salaanta sidoo shirki waxaan ka soo qayb galnay Brussels Belgium xarunta midowga Yurub taasoo barnaamij liira New Deal oo ahayd oo la mid ah ama la macno ah ama xoogoo la isku fasiri karo يوروب مركي دجالويني اللي بعد أي كسر بحدي واحد في ليه يكون سجال بول أفرتي شنتي إلى يكون تنكي واحد جوان له جاري معناها مشروع لي هذا مارشال بلان إن يوروب لا بس حفلية أصلا ده أنجونا ما لها دجال دي كبر بري كم ده هاي كده مارشال بلان كي الودسي يوروب حتى النيو ديلكا صاحب بدأنا يوروب waxay go'aan ku gaareen in Soomaaliya laga dhiso dhinac walba amniga caafimaadka horumarinta beeraha waxbarashada isdhaxgalka dawladeynta guriyeynta jidadka iyo ma ashbaa dalik falida Yurub waxay sameysay waxaan weligeed maxaa caalamka loo sameeyay dawladda Afrikaanka ee Soomaaliya u sameysay waxa kamid ah Brussels ama xarunta midowga Yurub waxaa lagu xarday maxaan ku rahay magaalo madaxdii Belgium caalanka Soomaaliya caalanka Yurub ayaa la isku garab dhejiyay saad u jeedaan waa baajkaas kan waa caalankii Yurub caalankii Soomaaliyeedna waa kaas meel walba asagoo waaweyn kan waaba yar yahay waxa la yiri laba maalmood oo dhanba Soomaali bas laga hadlaa dawladka laga hadlin ma qofka laga hadlin ma qofkii imaadana ajenda lacagna ku yabooho ama inuu maxaan ku rahay lacag keeno labadaas eray bas oo furna leeyahay sharaf taskiin nolol sameyn lahayn ma jirin kuwa calfada oo runtii dadka hadda caalamka oo dhan international community istaagay raba in wax nala qabto ku fahmo oo ka faa'iideysan lahayn naga dhigo meelaha ka maqlayna waa lagu heshiiyay federaalka mar haddii marka lagu heshiiyay federaal lagu heshiiyay waxa weeye sidii aan uga qayb gali lahayn ayaa loo baahan yahay marka inaan isdiidsiino ma ahan adduunyadii baa loo sheegay madaxweynuhu ku celcelinaya aad maqlaysaan mar walba oo le federaal waa ku heshiinay laakiin sidii loo dhisi lahaa ayaan la isla garan marka su'aashaas waxaan u maleynayaa sidii loo dhisi lahaa inaan ku mashquulno oo arrinka federaalka heshiiskiisa ah ma aragtay already waaba macnaha way arrintaas wayna gashay waxa kaliya oo noo dhiman marka dadka ay codeynayaan haddii ilaahay yiraahdo in loo codeeyo federaal ma rabno barakaatu mudane gudoomiye ku soo dhawaw TV-ga qaranka National TV shukran waan ku soo dhawaay su-aasha ugu horeysa waan ku weydiinaa waxay tahay maadaama aad ka imaatay gobolkii Shabeellada Hoose sababta oo loogu bixi lahayd al-shabaab maxay tahay
waa maasantahay mudane weriye horta waxaan u mahadcelinaa runtii TV-ga qaranka Soomaaliya National TV weriyaasha iyo cameramanka iyo ragga kaleba shabaab waa laga saaray 80% gobolka Shabeellada Hoose laakiin magaalooyin muhiim ay ku jiraan sida Baraawi iyo Qoryoole iyo Buulo Mareere meelaha istiraatiijiga ah kuwaasna hadda maxaan ku radaa dawlad waa taqaanayo jabhad maniin anagu maniin dad oo warlords ah maniin dad koox oo meel qabsanaysa dawlad way dawladdeena federaalkana waxay xiriir leedahay AMISOMna caalamka international community-ga soo diray balaan iyo qorshe jira oo loogu talagalay meelahaas in laga saaro annaga xilligii ramadaanka waxay ahayd in laga saaro ilaa Baraawe falida waxa dhacday nimanka khawaarijta argagixisada al-shabaab inay ayagu dhaxdooda dagaalameen isbireeyeen qaar badan ka soo baxsadeen marka waxaan rabnay ayadoo siyaasad ay tahay oo loogu talagalay idaacad inaan ka sheego inaan u sugno in xoogaha maxaan ku mindidu kulli inaan la wada saarin in la caymiyo inta rabta inay soo baxsato ee inta rabta inay dawladdu ku soo biirto inaan caymino ayaan ugu talagalnay laakiin hurdaha bay la isma faro hadda la saayay insha Allah